dhawaan ayay ahayd markii uu Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo kamida salaadiinta gobolada Awdal Salal iyo Gabiley uu jeediyay baaq qayla dhaan ah oo ku saabsan dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku kala sugan gobolada Awdal Salal iyo Gabiley waxa baaqaasi markii ugu horeysay ka soo jawaabay jaaliyada goboladan Awdal iyo Salal ka soo jeeda ee ku dhaqan dalka Ingiriiska waxayna maanta suldaanku soo gaarsiiyeen deeq lacageed oo ugu tala galeen in la gaarsiiyo dadka ay abaaraha saameeyeen si loogu iibiyo raashin iyo waxyaabaha daruuriga ah Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ayaa waxa uu ka shanqariyay deeqdaasi lacageed inay soo gaadhay in baaqi andhawaanta u soo jeedinay ummadda Soomaaliland gaar ahaan gobolada Awdal Salal iyo Gabiley ee ku saabsanaa qayla dhaantii abaaraha ee ummadda abaaruhu ku habsadeen sidii loogu soo gurman lahaa aan ugu baaqnay ayaa saaka halkan waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa oo aan mahad ugu celinayaa inaan dadweynaha u sheego jaaliyadda gobolka Awdal ee UK gaar ahaan beelaha deegaanka ee abaaruhu saameeyeen dhawaanadan oo ka soo jawaabay baaqii aan u jeedinay ee qayla dhaanta abaarta ahaa oo iyagu isxilqaamay iskuna tagay noo soo dirayna lacag hordhaca oo ay ugu talagaleen in ay ugu soo deeqeen walaalahooga abaaruhu ay saameeyeen lacagtaas oo imaga hortaalla oo aan saakana soo gaadhay oo dhan $4,620 oo ay jaaliyadda UK gobolka Awdal gaar ahaan beelaha deegaanka ay abaartu saameysay ka soo jeeda ay ugu deeqeen dadka walaalahood ee abaartu saameysay run ahaantii iyaga aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan ka rajaynayaa in ay waa bilow ay wadaan ilaa inta abaarahaasi ay ka jabayaan dadka ee Ilaahay raxmadiisa uu ugu roonaanayo waxa kale oo sheegayaa dhammaan jaaliyadaha kale ee gobolada Awdal Salal iyo Gabileyba ee aan ugu soo jeedinay baaqa inay iyaguna ku daydaan walaalahooga UK jaaliyadda UK ee soo dhiibtay maanta lacagta qadarkayga aan idin sheegay oo run ahaantii aanu sida ugu dhaqsaha badan leh maalmahan soo socda aan ku gaarsiin doono dadkii loogu talagalay ee abaaruhu saameeyeen waxaan u soo jeedinayaa jaaliyadaha kale hadday Mareykan tahay Canada Yurubta kale wadamada Carabta iyo meel kastoo ay dadweynaha joogaan inay ku daydaan walaalahooga maanta ugu soo horeeyay lacagta qadarkaas soo diray iyaguna inay ku daydaan oo ay soo caawiyaan walaalahooga abaaruhu ay saameeyeen inkastoo deeqdan lacageed ee maanta soo gaadhay Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar maalmaha soo socda la gaarsiin doono dadkii loogu talagalay haddana weli waxaa jirta baahiyo fara badan oo ay dadkaasi qabaan kuwaasoo saameyn xoogan ay u geysteen abaarihii soo noqnoqday ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa goboladan Awdal Salal iyo Gabiley Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama.